Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Marka hore waxaa mahad iska leh Allah subxaana wa tacaala. Marka xigto waxaa mahad iska leh asxaabteena ku xiran YouTube channelkeena Talooyin Caafimaad iyo Facebook pagekeena Talooyin Caafimaad. Dhammaan waa idin salaamay. Salaan kadib muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay in uu yaraado dareeraha minka ku jiro xilliga uurka inuu yaraado ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Inta aan u gudgelin muuqaalkeena waxaan si gaar ah kaga codsanayaa inaad YouTube channelkeena subscribe noo saarto, Facebook pagekeena follow aad soo tiraado insha Allah. haddii aad su'aal qabto qaybta hoose commentiga nagu dhaf oo kuu soo jawaabi doonaa insha Allah. Haddaba muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay in uu yaraado dareeraha ku jiro minka dhexdiisa kaasoo ubadka uurka ku jiro ka saacido waxyaabo badan. Haddaba hooyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal si lama filaan ah dhakhtarka kuugu sheegay in uu yar yahay dareeraha ku jiro minka dhexdiisa. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa insha Allah shaqada dareerahaas uu qabtay ayaan kaga hadli doonaa insha Allah. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha sababa inuu yaraado dareerahaas ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Ugu dambeynna waxaan ka hadli doonaa insha Allah sidee ayaa lagu badin karaa dareeraha ku jiro minka dhexdiisa kuwaasoo ubadka ka saacido waxyaabo fara badan. Dareerahaas ubadka wuxuu u qabtaa shaqooyin fara badan ayuu u qabtaa. Tusaale ahaan ubadka wuxuu ka difaacaa noocyada kala duwan ee caabuqa ayuu ka difaacaa. Sidoo kale dareerahaas ubadka wuxuu ka difaacaa in ubadka cadaadis saarto mandheerta. Sidoo kale dareerahaasi ubadka wuxuu ka saacidaa dhaqdhaqaaqa ayuu ka saacidaa. Sidoo kale dareerahaasi wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa koriinka, habdhiska dheefshiidka iyo neef mareenka. Haddaba maxaa sababa marka inuu hoos u dhaco dareerahaas? Waxyaabaha ugu caansan ee sababa in dareerahaas yaraado waa in hooyada aynan cabin biyo ku filan. Sidoo kale in dareerahaas yaraado waxaa sababi kara in hooyada dhaafto xilliga foosha. Ugu yaraan 2 isbuuc haddii hooyada dhaafto xilliga foosha waxaa timaado inuu dareerahaasi hoos u dhaco. Sidoo kale waxyaabaha sababi kara in dareerahaas hoos u dhaco waxaa ka mid ah dhiig karka yimaado xilliga uurka. Sidoo kale cudurka macaanka haddii hooyada ku dhaco xilliga uurka uu sababi karaa in dareerahaasi hoos u dhaco. Sidoo kale waxyaabaha sababi karo in dareerahaas yaraado waxaa ka mid ah in hooyada fuuq baxdo, in xoogga ku daharan dareeraha oo dilaaco foosha ka hor wuxuu sababi kartaa inuu dareerahaasi yaraado. Haddaba waxaa wanaagsan in hooyada dhakhtar aado haddii ay aragto saddexdan waxyaabood. Haddii hooyada ka yimaado dareero xubinteeda taranka ama haddii uu yimaado waxa loo yaqaano daadka, waxaa wanaagsan in hooyada booqato dhakhtarka. Sidoo kale waxaa wanaagsan in hooyada dhakhtar aado haddii uu yaraado dhaqdhaqaaqa ubadka. Haddii hooyada miisaankeeda aan siyaadin ama aan badanin, waxaa wanaagsan in hooyadaas ay booqato dhakhtarka. Dhibaatooyinka ka dhalan kara in dareeraha hoos u dhaco waxaa ka mid ah fool soo degdegto, caabuqyo ku yimaado ubadka. Sidoo kale dhibaatooyinka waxaa ka mid ah in ubadkii si qaab daran u samaysmaan. Sidoo kale waxaa imaan karo dilan. Ugu dambeyntii sidee loo badiyaa dareeraha ku jiro minka dhexdiisa kuwaasoo ubadka ka saacido waxyaabo fara badan? Hooyada waxaa u wanaagsan inay cabto biyo fara badan, gaar ahaan bilaha dambe ee uurka. Hooyooyinka waxaa wanaagsan inay cabaan biyo fara badan. Bilaha dambe ee uurka waxaa la arkaa in inta badan dareerahaas aad u yaraado. Sidoo kale qodobka labaad waxa waaye in hooyada qaadato khudaarta iyo fruitiska. Miraha iyo khudaarta inay cunto ayaa wanaagsan. Khudaarta ay cuni karto waxaa ka mid ah qajaarka ayaa ka mid ah, koostada ayaa ka mid ah iyo karootada. Sidoo kale waxaa wanaagsan in hooyada qaadato miraha sida qaraha inay cunto ayaa aad u wanaagsan oo qaraha wuxuu ka kooban yahay biyo fara badan wuxuuna ka saacidayaa inuu bato dareerahaas ayuu ka saacidayaa.